kulanti wacan asxaabteeda daafaha dunida ku kala noolay maanta waxaan idin haynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan nolosha guud ee magaalada London waxaanu diiradda ku saari doonaa kirooyinka magaalada transportationka iyo sidoo kale maciishada magaalada dawladda sida ka warhaysaanba London waxay ka mid tahay 10 magaalo ee ugu qaalisan caalamka waxaana kaga jirtaa kaalinta afraad barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno dadka doonaya inay u soo guuraan magaalada iyo sidoo kale dadka kale ee jecel inay iska ogaadaan informationka guud طبعا waxaanu ku bilaabaynaa kirada sababta oo ah qof markuu magaalo kale u guurayo wax shayga ugu horeeya uu eega waa dhinaca kirada marka kiradinu ka bilaabaynaa sida ka warhaysaanba London waxay ka kooban tahay 23 degmo 23 degmo kirooyinkoodu way kala duwan yihiin way kala qaalisan tahay waxaana ku xiran tahay xaafadda sida ay suuqa uga sii dhowdahay ama bartamaha magaalada uga dhowdahay iyo sida ay u karaam yar tahay website-ka aad arkaysaan waxa leh mid kamida agenciyada guryaha kireeya magaalada London optionada lagu weydiinayo marka ugu horeysa waxa kamid ah goobta aad doonayso inaad magaalada ka degto masaafada aad doonayso inaad u jirsato magaalada bartankeeda sidoo kale waxa lagu weydiinayaa property type nooca guriga aad doonayso noocyada guryaha ay meesha ku hayaan waxa kamida boats London waxa ka jira sida ka warhaysaanba dad baa jira dooniyo degan dhex degan oo ay dooniyo u yihiin guryo webiga ku baakan karaysan marka aynu isla aragno guryaha ay hayaan qiimahooda guriga aad arkaysaan wuxuu ku yaalaa xaafadda North London waa Tottenham qiimaha lagu kireynayaa waa 2405 gini waa guri 3 qola usbuucina wax laga qaadayaa 550 gini guriga ka sii hooseeya waxa weeye ama ku yaala Dagenham waa 2 qol oo hurdo ah usbuuci wax laga qaadayaa 300 oo gini bishiina 1300 oo gini baa laga qaadayaa guriga ka sii hooseeya wuxuu ku yaala xaafadda Stratford ee East London E15 weeyaan weegi wax laga qaadayaa 435 gini waa guri hal qol oo kaliya ah sababta gurigan uu qaaliga yahay waxa weeye wuxuu ku yaala xaafad istaraatiijiya oo runtii aad ugu dhow cityga ama bartamaha magaalada guryaha aan idin soo tusnay waxay ahaayeen kuwii private loo lahaa ee private loo kareynayay laakiin waxaa jira qaar ay dawladdu leedahay oo aad uga jaban kuwan private ka ah oo qiimahooda u dhaxeeyo 500 ilaa 800 bishii imika waxaanu soo baxnay aan hortaaganahay sida arkaysaanba dukaanka weyn ee Lidl oo ah dukaan kamid ah dukaamada ugu waaweyn dalka UK dadkuna ay aad uga adeegtaan qiimihiisu ka jaban yahay marka loo eego dukaamada kale isaga la midka ah sidoo kale quality-giisu aad bay u fiican tahay marka halkan aan maanta ka adeeganayna ina marsha marka kirada laga yimaado shoppingka cuntada ayaa noqonaya waxa labaad ee ugu qaalisan waxa jira dukaamo dhowr ah oo laga adeegto laakiin dukaanka Lidl aad buu uga jaban yahay marka loo eego dukaamada kale isku celcelis ahaan qofkii waxa ku filan 100 gini usbuuci hadii uu qoys yahayna waxay ku xiran tahay tirada uu qoyskaasi ka kooban yahay haddaynu eegno dhinaca transportationka London waxaa ka jira tareen dad ku raacaan badankiisa iyo basaska oo loo yaqaano public transport sidoo kale waxaa jira private dad gawaadhi wata oo privately gawaadhidooda ka haysta ayaa jira marka waxaanu kala qaadaynaa public iyo private transport baynu kala qaadaynaa iyo inta qofkii ku baxda transportation kaga baxda bishii celcelis ahaan ama average ahaan marka ina marsha London waxa ka dhex shaqeeya oo dadku raacaan tareeno basas gawaadhi ay leeyihiin iyo tagaasi sidoo kale waxa jira dad badan oo baaskiiladooda shaqada ku taga isku celcelis ahaan qofku wuxuu bishii tareenka ama baska ku raacaa 490 gini qofka gaarigiisa wataana bishii average ahaan waxa ku baxda 200 oo gini sababtoo ah shidaalkii oo kor u kacay iyo insurance-ka gaariga